maanta waxaa maalin weyn oo taariikhi ah oo u ah dadka Somaliland iyo geeska Afrikaba iyadoo aynu goobjoog ka nahay furitaanka ballaaran ee lagu casriyay dekedii Berbera oo ay maalgelisay shirkadda DP World ee ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta waxa kale oo suurtagelinaysa arrintaasi ma aha oo kaliya in dekedii la furay ee waxay ka dhigaysaa Somaliland dal hogaamiya shaqada dekedaha noqdana goob baayac mushtar oo u dhiganta Singapore ama Dubai mustaqbalka soo socda hawsha inoo qabsoontay waxay kor u sii qaadaysaa horumarka dhaqaalaheena soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah iyo shaqo abuurka dalkeena waxaan uga mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo ku dhiiratay inay adduunka inta la geliso dalkeena Somaliland iyada oo waqtiga ay dowlado badan ay ka hor yimaadeen oo duufaano coladeed ku kiciyeen in aan la dhisi karin dekedda waxaa si gaar ah ugu mahadnaqayaa Suldaan oo ah maareeyaha dekedda DP World oo u dhabar adeegay culays kasta iyo cadaadis kasta oo kaga yimid dowladda jaarnahay si loo joojiyo in la bilaabo dhismaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Suldaan DP World iyo madaxda dowladda Carabta waxaan u mahadnaqayaa wafdiga Ethiopia ee wasiirada hogaaminayaan iyo wafdiga ka socda dowladda deegaanka Soomaaliyeed madaxweynaha hogaaminayo oo inoo muujiyay inay yihiin dad ay naga dhaxayso wada shaqayn jaar wanaag isdhexgal iyo inay iskaashadaan mustaqbalka fog inta aynu ku uumanahay labadan dal ee Ilaahay walaalay waxa kale oo mahadnaqayaa dhammaan macaamiisha dekedda Berbera kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba mahadnaqa kadib inaga reer Somaliland maanta waa inoo farxad oo waxaanu furay dekedii waxaase ayna furay culays badan oo ah inaynu u adeegno dalalka aan lahayn dekedaha ee u baahan in dekedda isticmaalaan ee ugu soo horeeyo dowladda deegaanka Soomaaliyeed iyo Ethiopia oo dhan iyo inta ka shaqeysa xilkaasi waxay looga baahan yahay mas'uuliyad culus oo ugu horeysa soo dhaweyn ilbaxnimo shaqo fiican waayo noloshu waa tartan dekeduhuna way tartamayaan dekedda waxa qulay hirgelaysaa marka la helo deked waqtiga ugu yar kaga dejin karta marka ee geyn karta halka looga baahnaa waa ta koobaad minidka qaaliya marka dekedda laga shaqeynayo waxaa loo baahan yahay dad lala macaamili karo oo ilbaxa oo furfuran oo qofka yimaaday baaxmushtarka uu ku nasto ee aanu ku deeqadona waa laga doonaya waxa laga doonayaa ammaan gaariga halka ka baxay dhexda maraya haddii uu ku banjaro ama meel istaago alaabtiisa iyo dadkiisu inay ammaan ahaadaan hadduu sharci shay yaalo oo la yiraahdo waa dhulkii ammaanka ahaa kartida ahaa ilbaxa ahaa ee wax laga iibsan karayay markaasaan tartami karaa xilkaas ay naga leeyahay qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber